يقولوا ودادو حقوق علماء المكافحة علماء الله دقالك أرجع حسده وحكم له إنه كويري ملها قاركود أو علماء قاركود النقاشين وكويري وحاتهين علماء اللي هذا محاربة الإرهاب علماء محاربة الإرهاب وحين أهيد مسألة دي كدلتي صومالي قلبيد هي كيس كيدي بيان أن كسو صارني هي النقاش كي كدشو شيخ شبلية سجد أحمري مسألة دا إيضا أيو مركا ودادي بيان كقري بوكا هالليا مركزو حليه وعلماء الريرات باتين رجع إرهاب كلا دجال منواتي إرهاب كرر ده ما تقنا ورجع قال هذا وش قيوه قال هذا وش قيسان وحكم إذا أحيانا نقول السحي مركا وانكويري علماء الآن ده مكافحة الإرهاب واحد هي علماء العصبة واحد مي كان مدين سو قردر ما هذا الكاس هوا قردر محاكو جي وان حناقصن هاي طيب حنقول هدو حناقو جي يا شيخ حسان او هدو حناقو جي حناق وينات كنترول شيء هيده رجني ورجعت كو حد غدبتي ama ka xalaasho ama waxaad samaysaa risaaladan hadda soo saarayso ha ku soo baxdo adoo ka noqday khaladkii kala cudur daaranay waayahay buu sheekhu risaaladii baa soo baxday uu ii keenay waan fiiriyay mise kuma taalo sheekhi telefoon baan u diray waxaan war sheekh sidan aan isku ogeynay dadkii aad ku xadgudubtay inaad ka cudur daarato maadan ku soo qorina maxaa dhacay sheekh gadaalshada wax badan baa isbedelay buu waayahay baan idhi maxaa isbedeli kara ruux walaalka oo muslim oo ku xadgudubto qirsanta inaad ku xadgudubto maxaa isbedeli kara cirdigiisu kuugu banaanaan kara miyaad garanaysaa idinka waa saw awsha ayada inay aan aaminsanahay kitaab baan ku qoray markii aan qoray maxaa wax looga dhihi waayay niman la dagaalama mujaahidiinta iyo nin walbo gaal iska difaacayso ma jiraan oo ka daran manaabirta fadhiya oo gaalkaba ka daran hadduu sheekhu xusula asagu xasan wuxuu taageeraa si in la'aana kooxiyaha حق جركا وركاس الله ما قرنهاي نمان لا دغالا ما ددكي حق جر واركان يا متطرفين يا ارهابيين لا دغالا ودادو دوب واوين oo dhaqaala ku qaataa jira gaalana way la dagaalamaan ee waxa laga yaabaa in caamilku iyo baacidku kala duwan yahay oo ninkan wuxuu la dagaalamay waa muslimiin baabi'i oo gaalka ah ninka wadaadkeen haysanna wuxuu la dagaalamayaa fitna iyo inxiraaf manajis oo la dagaalan biyo shuk waa maxay labadin wax la dagaalamaysan مجاهدين تي واحد إرهاب وتقانان نمان كنا واقالوا هران بعلبان أهين إذن كنا ودادم وحاتين في سنة إن اللي ذكر دقوي أنت اللي أود ذكره شيخ أنا صاحب بضي إله المايان في سنة هاي بواركي مركب وأنا نقد دقي بنك كلا رجع صاحبي اللي قد دقي شو محكود دي ده يعني وهولها الله يا أبي ازدواجية ازدواج معايير وحلو نجريوي وهول دي بدن وهوش عيدا قضية وحوشوخ وحدنا إثارية مسألة العطف الأسري وهذه الصومالية قد أي دفاعين بيانات السعودية الله دقالما أي مساجل أي بلاباتي يعني شيخ يا صاحبي وحان كتهم هي دفاع الصومالية قلب الدفاع هي دين مئه وتعصب قيس وأبصم أهيلين يؤجد النبى إن قاضي بان كهالي إن يقضب النحين ويسن دين أهم بأي مقتوانا كهالي هوشي بالشيخ آد وقحان وصدي كدب وحكفا إذا يستي قضية مرضى عدو عجل أنتو أروريي حقوق دب الله أركي باقويسكي أنا قاهبين حقا أنتي قبتين بين شيخر هالي قالي عجليه وحدونها قصميو هشية على مصار كعانا شب وحول بكيال سيدي بان يلو كعانا شب مدحان كدون كبار هالو بان كوري أضابي ديلي لك أدنا ونرالو لما عنا تانكي على هذا الشيء ضد يعني مركز الشيخ محمد الأحمر رئيس الرسالة دي بان كو قري مسائل فربضان والشيخ محمود خسيسي iyo ku gudba خيركم waxay xukumaan ilaahan sheekhu wuxuu ku idama khilaafi kartid yeel wuxuu ku yeelana yeesho wuxuu kitaabka intaan soo sar u dambeeya oo tanbihaadka isoo mari soo sidaatidiisa balaayad ka dhaqaaqi yeekeen waanu geeyay صفحات بدن iyo مسائل بدن buu gooyay oo sheekh maxamuud khusayib buu sheekhu hal gooyo هل حذفي تحذف هذه الفقرات والمعلومات وان حذفي لبا قضب با سو هداي علماء مكافحه الارهاب iyo wadaadaha waxa ka muuqanaya alcatf alusari
danqasho qabiil iyo qoys inaad ree Soomaaliya gabi u difaacaysan oo san diin ahay waana asbaabayo amankan meesha way ku jirtaa annagu wada fadhino qadiyadan labadan qodob waa inaad reebto waxaan ku labadan qodob wax ii muuqday weeye bal u kaada sheekh waa isku dhibay qaabkan oo digtad ahayd uu hadlay intuu wareegaysan karay ama weerar karay nin baa nala fadhiyay waxaan ku iri icaatu nadar baan ku samayn icaatu nadar waa inta aan ku xusuus sheekh qaabka uu dhigay oo hawlo kale ka sii daayay oo aan meesha ku ogeyn icaatu nadar baan ku sameeyay kitaabka intuu yahay hal xadfo waan xadfay ama kan kitaabku yaala labada mas'alo waxaan arkay inay munaasabto meesha loo daayo kadib uu sheekhu soo wuxuu labada mas'alo maxad u goyn weyday in meeshooda loo daayo sida ay yihiin baa ila qumanaataan ku ori sheekhu qaab kale u dhigay sida bay ku baxday العطف الأسري وداد ku eedeeyay iyo saaxiibadii waxa weeye waxaan rabaa inaan in yadul istaago jabhadda Soomaali galbeed sheekhu waa difaacay gaalnimo in la saarana wuu diiday shariifkii saaxiibadiina uu ku duulahayay isku sabab iyo isku wax bay sheegteen kuwan dastuur bay aqbaleen oo qaateen shariifkuna dastuur buu qaato aqbalay عبد الله يوسف بو تكفيرين جيري او دستوري وخي لا كو تكفيرين جيري شيخ او لا اوغياي nimankaas Soomaalida kala iyo daaroodkii hawiyaha kala waxaad u difaaci weyday kuwana adugu nafbixi Sheekh Maxamed oo maxay tahay baani muuqatay ee muhadaradii aan dhigayna aad ugu weerato tiri khafiifi maqaalaadka aan qorna goo hawsha ka hadlin hawsha iska ilaali dagaalkii dhacay waad ogtihiin waxa ay muuqatay qadiyadana inay tahay qadiyad qoys oo aysan ahayn qadiyad diineed warhawshan hawla qiyaas iyo taqdiir shakhsi aweeye adoo niman baad ku toontaa ana wuxuu ku toonsan yahay in si indhala aana nimanka wax kasto ay sameeyaan aan maro u saaro u difaaco hadaan taan kugu tuumo inaad Soomaali galbeed ku nafbaxayso maxaa dhib ku jira waxa aad u soo ogashay dadka in la ogolaada wanaagsan